بسم الله الرحمن الرحيم ومعلم كمادة إنجليشكا مقعي ونوى محمود علي شريف وحن قادنينا مانتا 10 كيني كواد قيبتيسي تضبط أو قيبتي أقدم بيسي وحن أبهر لنا what intaan cashirka u guda galin waxaan jeclahay inaan tilmaamo kelmadda what waxa ay tahay iyo waxa loo isticmaalo. kelmadda what waa eray su'aaleed sida aad aragtaan. what waa eray su'aaleed waxayna qayb ka tahay eray su'aaleedyo badan ee la isticmaalo ayay qayb ka tahay. ila soco waxaan sheegnay kelmadda what in ay tahay eray su'aaleed. what waa maxay? waa eray su'aaleed. maxaa loo isticmaalaa? what waxaa loo isticmaalaa mar la arko oo aad rabto in aad object shay markaad rabto in aad weydiiso kelmadda aad isticmaalaysid oo aad ku weydiinaysid waa what. waxaa kaloo loo isticmaalaa what idea markaad rabto in aad fikrad ama aragti aad wax ku weydiiso kelmadda aad isticmaalaysid waa what. what waxaa kaloo loo isticmaalaa action dhacdo marka aad rabto in aad wax ku weydiiso ereyga aad isticmaalaysid oo aad ku weydiinaysid waa what. okay waxaan jeclahay marka inaan arrin idinku baraarujiyo taasoo ah kelmadda pluralka. waxaan dhahnay kelmadda marka aan rabno inaan plural ka dhigno meesha ay ku dhamaato s ku dar, sidaas ayay kelmadda plural ku noqonaysaa. okay kelmadda marka waxaa jiro oo aan pluralkooda s noqonaynin oo pluralka si kale looga dhigo. waxaa ka mid ah kelmadda food singular weeyaan, marka ay food tahay waa singular. pluralkeedu waa feed. feed waa plural. kelmadda tooth. tooth waa singular. pluralkeedu waa teeth. teeth waa plural. inaad sidaas u fahamtaan oo ay idiin cadaato ayaan jeclahay. kelmadda s in lagu daro keliya plural kuma noqoto. aan u soo noqono cashirkeena. waxaan ka hadlaynay kelmadda what ayaan ka hadlaynay. what ayaan waxaan arkaynaa marna inagoo singular u isticmaaleyno marna plural u isticmaaleyno ayaan arkaynaa. sidoo kale what waxaa kaloo loo isticmaalaa layaabka. marka aad rabto in aad muujiso wax aad la yaaban tahay waxaad isticmaalaysaa what ayaad isticmaalaysaa. okay waxaas aad la yaaban tahay marka kala ah marna waa shay keliya oo aad la yaaban tahay marna waa wax badan oo aad la yaaban tahay. okay kelmadda markii ay singular tahay oo aad la yaabna ku muujinaysid hab ayaa loo dhahaa. marka ay plural tahay oo aad la yaab ku muujinaysidna hab ayaa loo dhahaa. farqigaasaana u dhaxeeyo inaad kala fahamtaan ayaan jeclahay. sidoo kale cashirkeena qaybtiisa hoose waxaan ku baran doonaa magacyadii aan soo qaadanay sida ay isku raaci karaan ayaan ku baran doonaa. aan isla socono dib ayaan u noqonaynaa. halkan marka waxaan ku qaadanaynaa kelmadda what oo aan mar singular u isticmaaleyno marna plural aan u isticmaaleyno. aan cashirka guda galno. okay kelmadda what marka aan singular u isticmaaleyno ayaan ku bilaabeynaa. alright Natalie waa qof magaciisa. what is this? waxay tiri kani waa maxay? what is this? kani waa maxay? Richard wuxuu yiri this is a head. this is a head. kani waa madax. Natalie waxay tiri what is this? kani waa maxay? Richard wuxuu yiri this is a chest.
kani waa xabadka. muhiimadu waxa weeyaan kelmadda what marka aad isticmaalaysid habka aad u isticmaalaysid in a singular iyo marka aad plural u isticmaalaysid in la kala fahmo. muhiimada intaas weeyaan. qaybtan pluralka imow. Alexandra wuxuu yiri what are these? kuwani waa maxay? what are these? kuwani waa maxay? Nicholas wuxuu yiri these kuwani are waa is. magacyada pluralka ah kuwooda s noqonaya iyo kuwooda z noqonaya hore ayaan uga soo hadalnay videoga hore dib u noqo. Alexandra wuxuu yiri what are these? kuwani waa maxay? Nicholas wuxuu yiri these kuwani are waa chicks. hore uga soo hadalnay kelmadahan in badan oo kamida hore uga soo hadalnay videoga hore dib ugu noqo. waxaan jeclahay marka qaybtan aad u badan tahay inaan intaas ku soo gaabiyo oo aad uga tusaale qaadataan. inta kalena waa la mid. kaliya waxaan idinku baraarujiyay kelmadda regularka ah iyo maxaa kelmadda esta qaadanayso iyo midda pluralkeeda si kale uu noqonayo ayaan idinku baraarujiyay. marka waxaan jeclahay qaybtan inaan intaas ku soo gaabiyo oo aad uga tusaale qaadataan inta kale. halkan marka waxaan uga hadlaynaa what marka ay layaab muujinayso sida ay noqonayso. what marka ay layaab muujinayso layaabkaasina uu yahay wax kali ah shay kali ah oo aad inaad la yaaban tahay muujinaysid habka aad u dhehaysid ayay qaybtan ka hadlaysaa. qaybtan kalena waxay ka hadlaysaa shay badan ama waxyaabo badan oo aad la yaaban tahay marka aad muujinayso sida aad u isticmaalaysid ayay qaybtan ka hadlaysaa. qaybtan singular ayay ka hadlaysaa oo aad la yaab ku muujinaysid. qaybtan waxay ka hadlaysaa plural oo aad la yaab ku muujinaysid ayay ka hadlaysaa. okay kelmadahan macnahooda ayaan sheegaynaa si aan u cadeeno in ay la yaab muujinayaan. aan ku horumarno qaybta singularka. what a body? what a body? alla qofkaana weeyaan macnaheedu ama alla muxuu qof yahay qofkaan. what a nose? what a nose? alla sanka. alla sankaana alla muxuu san yahay sankaan. okay aan hore u socon. what a face? alla muxuu weji yahay wejigaan. what a mouth? alla muxuu af yahay afkaan. what a brain? alla maxay maskax tahay. qaybtaasi waa qaybtii singularka weeyaan. halkan imo what muscles? waa pluralka. what muscles? alla maxay murqa yihiin. what hands? alla maxay gacmo yihiin. hands u fiirso plural s z aa loogu dhawaaqa. what hands? alla maxay gacmo yihiin. what eyes? alla maxay indho yihiin. what teeth? alla maxay ilka yihiin. what feet? alla maxay caga yihiin. okay kelmadda tacajubka markaan afkeena ku macneynayno maybe siyaabo kale gedisan in loo kala dhaho. مثلا what a body? alla qofkaana. what a nose? alla sankaana. what a face? alla wejigaana. what a mouth? alla afkaana. what a brain? alla maskaxdaana. intaas waa qaybtii singularka. what muscles? alla murqahaan. alla murqahaana. what hands? alla gacmahaana. what eyes? alla indhahaana. what teeth? alla ilkahaana. what feet? alla cagahaana. intaas ayaan kusoo gaabinayaa qaybtii what ee tacajubka muujinaysay. qaybtan marka waxay ka sheekeynaysaa
magacyadii aan hore usoo qaadanay habka ay isku raaci karaan iyagoo marna singular ah marna plural ah. aan qaybtan ku bilowno. This is a shoulder bone. This is a shoulder bone. Shoulder waa maxay? garabkii wey. bone waa maxay? laftii wey. waa garabka laftiisa. This tani is waa a shoulder bone. garabka laftiisa waa. Okay, this is a chin bone. Chin waa daankii, bone waa laftii, waa dhabanka laftiisa weeyaan. This is a leg bone. leg waa lugtii, bone waa laftii, waa lugta lafteeda weeyaan. This is a knee bone. knee waa jilibkii, bone waa laftii. this marka waa maxay? This is a knee bone. jilibka laftiisii weeyaan. sidaas ayaa laga wadaa. qaybtan waa qaybtii singularka. waxa uu imaadaa marka qaybtan kale uu imo ilaa halkan waxa weeyaan singular way. okay, singularka ayaa weli socda. This is a shoulder muscle. waa garabka muruqiisa wey. shoulder waa garab, muscle-na waa muruq. This is a shoulder muscle. kani waa garabka muruqiisa. This is a back muscle. kani waa dhabarka muruqiisa. This is an eye muscle. kani waa isha muruqeeda. This is an arm muscle. kani waa gacanta muruqeeda. okay, kelmadda marka inta maxaa pluralka ah? halkan ayaa pluralka u fiirsan. These kuwani waa chest bones. xabadka lafihiisa weeyaan. xabadka lafihiisa weeyaan. These kuwani waa leg muscles. lugta murqaheeda weeyaan. waa mahadsantihiin. cashirkan waxaan jeclahay inaan intaas kusoo gabagabeeyo. meeshaas waxaa inoogu dhammaaday cashirkeenii koowaad gebi ahaantiisa. la socda cashirka xiga insha allah. assalaamu calaykum.